بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قميص أي سوق جليسو صدق هذا بشا ديسمبر سنة كلا بكون لبعتني يشان أو كوبعجن لبية طبنك بشا جماد الآخر سنة كون أفر بقول أفرتني تضبط تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله إيو برامج كي قوبانها قضبضة أن إذن كوبها إننا وحا كمدا faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa iska horimaad culus oo khasaare sababay oo ka dhacay koonfurta Gaza militariga Israa'iil oo qirtay khasaare soo gaaray askartooda dagaalkaas intii lagu jiray Netanyahu iyo dhaqaaqa Hamas oo si iska soo horjeeda uga hadlay iska horimaadkaasi wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan ayaa idin soo gudbinaynaa dowladda Taliban oo si la yaab leh uga jawaabtay weerarkii dhimashada iyo dhaawaca sababay ee ka dhacay agagaarka aqalka cad oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay nin u dhashay waddanka Afghanistan Israa'iil oo duqeymo horle ka geysatay Syria iyadoo iska dhigatiraysa baaqi Trump ee ahaa in ay joojiso weerarada ka dhanka dalkaasi Mareykanka oo qorsheynaya in 2 toddobaad gudahood lagu dhiso guddi maamul u noqda Mareykanka Gaza sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay wuxuu ahaa baadari muddo 50 sano ku dhow laakiin ugu dambeyntii nuurkii iyo neecawdii islaamka ayaa ku soo degtay waxaan idin haynaa sheekada ku saabsan David Gold oo haatan la baxay Cabdiraxmaan oo xaramka tagay dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qobanaha Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaanna soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dennisbridge Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon fariin qoraal ah ama online waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas xarunta Private Walk in Clinic waxay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shepherdbush wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman qaybta xifdinta quraanka kariimka qaybta barashada shareecada sida xadiiska fiqiga siirada naxwaha tafsiirka quraanka iyo caqiidada iyo wixii la mid ah waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kala daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xaggaas iyo magaalada Kabul waxaana soo baxaysa jawaab Taliban markii ugu horreysay ay ka bixinayso wararka la xiriira weerar nin u dhashay waddanka Afghanistan la sheegay inuu ka geystay agagaarka aqalka cad ee dalka Mareykanka haddaba dowladda Taliban ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxba ka soo qaadin weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka kaas oo nin u dhashay dalka Afghanistan lagu eedeeyay inuu toogtay 2 askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka iyagoo ku tilmaamay dhacdo aan qusayn dowladda ama shacabka Afghanistan sida lagu sheegay bayaano rasmi ah oo ka soo baxay Kabul wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Taliban Amir Khan Muttaqi ayaa ka bixiyay jawaab arrintaasi wuxuuna yiri tani waa dhacdo qof kaliya uu geystay qofka falka geystay waxa tababaray Mareykanka sidaas darteed dhacdadan ma qusayso dowladda ama shacabka Afghanistan
raxmaanullah lakenwal oo 29 sano jir ah oo ah ninka lagu eedeynaya weerarkan ayaa talaadadii sheegtay in uusan dambi gelin wuxuuna diiday eedeymaha dilka wuxuu ka soo muuqday muuqaal fogaan arag ah oo kaga soo qayb galay maxkamadayntiisa isagoo ku sugnaa sariirta cisbitaalka uu ku jiro lakenwal waxaa lagu soo ogay dil darajada koowaad oo la xiriira geerida Sarah Backstrom oo 20 jir ahayd oo ka tirsanayd ciidanka ilaalada qaranka ee West Virginia iyo sidoo kale isku day dil iyo eedeyn ah haysashada hub sharci darro ah askari kale oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada qaranka oo isna ka soo jeeda West Virginia oo lagu magacaabo Andrew Wolf ayaa si daran ugu dhaawacmay weerarkaasi oo dhacay 26 November garsoore Rini Raymond ayaa amar ku bixisay in Lakenwal lagu sii hayo xabsiga ilaa dhageysiga xiga oo loo asteeyay 14 bisha January ee fooda inagu soo haysa waa tahay bal markan aynu eegno Israa'iil oo mar kale duqeyn ka geysata waddanka Suuriya waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu baaqayo Netanyahu joojinta weerarada ka dhanka ah dalka Suuriya warbaahinta gudaha waddanka Suuriya ayaa sheegaysa in weeraro duqeymaha Israa'iil ay la beegatay magaalada Beijing gobolka koonfurta Suuriya ee Rif Dimashq habe caawa waxaana lagu soo waramayaa in Israa'iil iska indhatirayso dadaalada Mareykanka ee ku aadan in xaaladda la dejiyo gaar ahaan Tel Aviv iyo Dimashq telefishinka rasmiga ah ee Suuriya ee Al-Akhbaariya ayaa sheegay in diyaarad daroon ah oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil ay beegsatay deegaanka ku yaala koonfurta ee buurta Beit al-Warda oo ku dhow magaalada Beijing ee dowladka Dimashq jimcihii la soo dhaafay ciidamo Israa'iiliyiin ayaa gudaha u galay magaalada Beijing taasi oo keentay iska horimaad hubaysan oo dhex maray dadka deegaanka iyo ciidamada waxaana halkaasi lagu dhaawacay 6 askari oo Israa'iiliyiin ah oo 3 ka mid ah yihiin saraakiil Israa'iil ayaa markaasi samaysay weerar Suuriyiintu ay ku tilmaameen xasuuq ay ugu argudaysay ciidankeeda dadka deegaanku ay beegsadeen waxaana ay qaaday weerar xagga cirka ah iyadoo duqeyntaas lagu dilay 13 qof waxaa ka mid ahaa haween iyo caruur ugu yaraan 25 kale ayaa ku dhaawacantay isagoo isku dayay in uu dejiyo xaaladda labada dhinac madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ugu baaqay Israa'iil inay sii wado wadahadal dhab ah oo xooggan oo ay la yeelato Dimashq isla markaasna aysan samayn wax carqaladaynaya horumarka Syria ugu jirto inay noqoto wadan barwaaqo ah bilihii ugu dambeeyay waxaa socday kulamo Israa'iil iyo Syria u dhaxeeya kuwaasi oo lagu doonayay in lagu gaaro heshiisyo amni oo horseeda in Tel Aviv ay dib uga baxdo goobaha ay ka qabsatay Syria wixii ka dambeeyay markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad bishii December 2024 inkastoo dowladda Syria aysan wax khatar ku ahayn Tel Aviv haddana Israa'iil waxay sii wadaa weerar dhulka iyo duqeymo xagga cirka oo sababay dhimashada dad rayid ah burburinta saldhigyo military oo Syria ku yaal gaadiid dagaal iyo ciidamada oo gudaha u gelaya inta badan magaalooyin ku yaala waddanka Suuriya waa hagaag qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno waxaan goorna u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay iska horimaad culus oo saacada ka hor ka dhacay koonfurta Mareykanka Gaza militariga Israa'iil oo qirtay qasaare soo gaaray ciidankooda Netanyahu oo ka hadlay Hamas oo hadashay wararkaas iyo waliba sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka iyo arrimo kale ayaan idin soo gudbinaynaa laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah
oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka facebooka twitterka iyo telegramka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag barnaamijkan ka horreeyay ee wararka caawa waxaan idinku soo gudbinay iska hormaad culus oo ka dhacay koonfurta jida Gaza halkaasna waxaa lagu soo warramay inay ku dagaalameen ciidamada Israa'iil iyo dagaalamayaal Falastiiniyiin haddaba faahfaahin dheerada ayaa soo baxaysa oo la xiriirta sida wax u dhaceen qasaaraha ka dhashay iyo waxa laga yiri arrintan waxaynu ku hormaraynaa warka la xiriira wargeyska lagu magacaabo The Times of Israel ayaa sheegay in 5 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ay ku dhaawacmeen bam nin Falastiiniya oo ku dhuftay gaari gaashaaban oo ku sugnaa Rafah waxa la aaminsan inuu ahaa qoryaha garabka laga riday ee Bazuka militariga Israa'iil ayaa sheegay in 3 askari oo ka tirsan guutada Golani ay ku dhaawacmeen halkaasi oo ku taal Rafah midkood dhaawaciisu waa uu culus yahay askari afraad oo ka tirsan ciidamada Israa'iil gaar ahaan qaybta Gaza ayaa isna ku dhaawacmay iska horimaad ay la galeen rag hubaysan oo ka soo baxay god dhulka hoostiisa oo ku yaal bariga Rafah idaacadda Israa'iil ayaa soo xigatay ila sheegaya inuu ka mid ah ciidamada Israa'iil inay la dagaalameen 3 nin oo hubaysan oo Falastiiniya oo ka soo baxay god dhulka hoostiisa oo ku yaal Rafah isla markaasna ay ku rideen ciidamada gantaal lidka gawaarida ah telefishinka kanaal 12 waxa uu ka soo xigtay sarkaal Israa'iiliya oo sheegaya waxa muhiim ahayd dhacdadan in markaasi laga sii taxadaro wuxuuna sheegay inaysan aqbali doonin waxyeello dambe oo loo geysto ciidankooda guud ahaan askarta Israa'iil ee la qiray dhaawacoodu waa 5 ilaa hadda wali Israa'iil ma sheegin wax dhimasho laakiin waxa la sheegayaa diyaaradaha qomaatiga u kacamay helikobtarada inay ku soo degayeen halkaasi waxa loo maleynayaa inay qaadayeen ciidamada Israa'iil halkaasi waxyeeladu ay ka soo gaartay arimahan isagoo ka farcelinaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu ku eedeeyay Hamas in ay wado basidal ku yiri jabinta heshiiska rasaas joojinta kadib dhaawaca 5 askari ee loo geystay galabta oo ka dhacay Rafah Netanyahu wuxuu ku adkaystay inuusan ogolaan doonin waxyeelo kasta oo gaaraysa ciidanka isagoo sheegay in si waafaqsan looga jawaabi doono arrintaasi war kale oo arimahan ay la xiriira dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wado ku xadgudubka heshiiska xabad joojinta ee Suuriyada Gaza isla markaasna ay bartilmaameed ka dhiganayso dadka barakacayaasha ah ee ku sugan meelaha ka baxsan qadka jaalaha waxa isla arimahan ay ka hadlay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska isagoo la hadlayay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa ugu baaqay in la ixtiraamo heshiiska rasaas joojinta ee Suuriyada Gaza isla markaasna loo baahan yahay in la furo marino badan oo gargaarka uu ka soo galo marayka Gaza intaynu barnaamijka ku jirnay war soo dhacay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna dhankiisa wuxuu sheegay in howlgallada military ee Israa'iil ay ka sii wado Gaza ay sababeen dhimasho iyo barakac hor leh oo ka socda Gaza isagoo intaa ku daray in uu doonayo in marayka Gaza gaar ahaan Rafah la furo iyadoo markaana loo furayo gargaarka iyo shaqaalaha wuxuu sidoo kale sheegay in Falastiiniyiinta xaq ay u leeyihiin in si xor ah uga baxaan marayka Gaza uguna soo laabtaan iyadoo wax cadaadis aan la saarayn arrintan wuxuu kaga jawaabayaa kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay furi doonto macbarka Rafah ee la soo gudbo Masar iyo Gaza loona furi doono kaliya Falastiiniinta inay baxaan macnaheedu waxa loo fasirtay inay tahay barakicin lagu wado dadka Falastiiniyiinta laakiin Masar way diiday waxay tiri waxaan ogolnahay in dadku ay bixi karaan soona laaban karaan haddii kale waxa la yiraahdaa furitaan ma jirto Israa'iil marka waxay ku eedeynaysaa Masar inaysan doonayn in dadka Falastiiniinta ay qaabisho Masarna waxay aaminsan tahay qorshaha Israa'iil ay wato inuu yahay dadka in la barakiciyo macnaha qofkii baxa ma soo laabanayo arrintaas marka waa arrin taagan waay haddaba qorshahan Mareykanku uu marayka Gaza
soo bandhigay la xiriira waxaa ka mid ahaa maamul inuu dhiso haddaba wargeyska lagu magacaabo Haaretz ka soo baxa Israa'iil ayaa goordhow wuxuu daabacay warbixin sheegaysa in militariga raali ahaada waa in dowladda Mareykanku ay qorsheynayso inay ku dhawaaqdo guddi ku meel gaar ah oo maamuli doona Mareykanka Gaza taas oo qayb ka ah qorshaha madaxweyne Trump ee lagu joojinayo dagaalka Gaza wargeysku waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta xarunta isku duwidda rayidka iyo militariga ee Mareykanku ka hirgeliyay deegaanka Kiryat Gat ee koonfurta Israa'iil si ay kormeeraan xabad joojinta ay sheegeen in diblomaasiyiintu ay tilmaamayaan in Mareykanku uu magacaabi doono guddiga maamuli doona Gaza iyadoo sidoo kale la magacaabi doono golaha nabadda oo kor joogtayn doona guddigaasi 2 toddobaad gudahood ayaa la magacaabista la samayn doonaa wargeyska Haaretz waxa intaasi uu ku daray in tilaabadan ay tahay mid loo qaadayo fulinta wejiga labaad ee qorshaha Trump ee mustaqbalka Gaza ilaa iyo hadda Mareykanka Israa'iil dowladda Falastiin ama Xamaas midkoodna kama uusan hadlin warbixintan wargeyska oo daabacay wejiga labaad wuxuu dhigayaa in Gaza loo dhiso maamul ku meel gaar ah oo ka kooban khubaro Falastiiniyiin ah oo aan siyaasad shuqul ku lahayn iyo qorshe dhaqaale oo dib u dhis ah oo lagu sameeyo Mareykanka Gaza wargeyska Haaretz waxa intaasi uu ku daray in guddiga la dhisi doono 2 toddobaad gudahood wuxuu ka koobnaan doonaa aqoon-yahano reer Gaza oo maamuli doona nolol maalmeedka inta dib u habeyn lagu sameynayo dowladda Falastiin oo ay ku jiraan arrimaha joojinta lacagaha la siiyo dadka weerarada ka geysta gudaha Israa'iil ee dagaalamayaasha ah qoysaskooda iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda qorshahan hagaajinta manhajka waxbarashada iyo qabashada doorashooyin Israa'iil waxay si cad u diidan tahay dhismaha dowladda Falastiiniya ama xitaa in dowladda Falastiin iyo maamulka Xamaas ay gacan ku yeeshaan ama lug ku yeeshaan maamulka Mareykanka Gaza wargeysku waxa uu sheegay in golaha nabadda uu yeelan doono qaab hoggaan caalami ah iyadoo la filayo Trump qudhiisa inuu noqdo korjoogtaha ama korjoogteeyaha iyadoo magacyada qaar sida Tony Blair loo malaynayo inay ka mid noqon karaan hogaamiyaasha golahaasi ka mid noqon doona Falastiiniintu horey arrintan way u diideen arrimaha la xiriira haddii dul istaagno marka isbedelka la wado waxa laga yahay dowlad Falastiini waxa dhisi doona oo maamulka Mareykanka qasan lagu wareejin doona marka lagu sameeyo isbedel arrimaha ay ka mid tahay manhajka waxbarashada marka maxaa la rabaa meesha laga saaro sida Falastiiniintu ay sheegayaan dhammaan erey kasta oo ku jira manhajka waxbarashada Falastiiniyiinta oo ka hadlaya xaqa Falastiin ee jiritaanka Israa'iil inaan la ogolayn iska cabito inay tahay xaq waxaas oo dhan baa la doonayaa marka in laga saaro manhajka waxbarashada sababta loo leeyahay marka dib u habeyn baa la sameynaya waa sababtaas sida ay sheegayaan khibrada Falastiiniyiinta waayo arrintaas sidoo kale maxay ku soo aadaysaa iyadoo bisha dhabaadkeeda aqalka cad aqalka cad maahan waxay ku kulmi doonaan goobta uu degan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Florida ku taal ee Mar-a-Lago la yiraahdo halkaas waxa ku kulmi doona Netanyahu iyo Trump dad badan marka waxay isweydiinayaan Mareykanka ma qasab bay ku tahay inuu Israa'iil kala tashado wax walba uu sameynayo oo la xiriira Mareykanka Gaza hindisahan hadda 20 qodob ee Trump uu soo gudbiyay maxaa lagu soo beegay intii Netanyahu uu booqanayay waddanka Mareykanka wuxuu u tagay bishii September shirka golaha guud ee qaramada midoobay shirki markuu dhamaaday aqalka cad baa lagu marti qaaday halkaas looga dhawaaqay qorshaha 20 qodob hadda marka waxa leeyahay sababta loogu yeeray Netanyahu waa qorshahan iyo maamulkan iyo guddiga la dhisi doono inuu talo iyo ku yeesho ra'yigiisa iyo go'aamadiisa dad badan marka waxay leeyihiin sidee loo arki karaa marka arrinta inay tahay arrin Falastiiniyiinta qusaynaysa yaa sidaas leh dhammaan dadka arrimahan ay ka faaloonaya oo xitaa ay ku jiraan khubaro Amerikaan waynu arki doonaa wuxuu ku soo kordhay arrimahaasi imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheekadan la yaab kale ninka halkan sawirkiisa idin kaga muuqdo sawirka gacanta midig markaad eegto waa baadari isla markaasna muddo 45 sano ah ayuu baadari ah laakiin sawirka dhinaca kale markaad eegto waa ninkii oo isbedelay oo taagan xaramkii iyo gurigii Allah ayuu taagay ninkan waxa lagu magacaabaa David Gold waddanka Australia ayuu u dhashay
muddo 45 sano ayuu kaniisadaha wuxuu ka ahaa baadari halkaas ayuu ka jeedin jiray macluumaadka la xiriira diinta Kirishtanka laakiin ninkan dhawaan ayaa waxaa la sheegay in cawdii islaamka ay ku beday isla markaasna uu qaatay diinta islaamka magacii Guul David ahaa ayuu wuxuu u bedelay Cabdiraxmaan wuxuuna ka hadlay isbedelka weyn ee noloshiisa ku yimid sidoo iska bedelay waa arkaysaa wuxuu leeyahay nasiib baan leeyahay buu yiri nasiib ayaan leeyahay waxaana mahad iska leh alle waxaad waqtiga nagu yar inta ayaan ku soo koobaynaa sheekadan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir ayno barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo